guddoonka labada aqal iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horrayntii waxaa mahad leh allihii suurto geliyey inaan halkan isugu nimaadno annagoo nabad qabna una diyaarsan inaan dalkeenna ka gudbinno wakhtigan adag si wada jira daacadnimo leh oo mas-uuliyad huwan waxaan xildhibaanada uga mahad celinayaa inay hoolkan ku afureen kuna suxuurteen naftoodana soo qadimeen si aan maanta halkan u soo gaarno mudanayaal iyo marwooyin guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada sharafta leh sidaad ogtihiin 23 Febraayo 2017 ayaa la ii magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muddo 3 sano iyo bar ah oo aan xilkaas hayay waxaan dalkayga iyo dadkayga ugu adeegay heerkii ugu sarreeyay anigoo sugay ammaanadii ummadda casriyey dowladnimada xoojiyey isla xisaabtanka abuuray nidaam maaliyadeed oo casri ah ilaaliyey xuquuqda shaqaalaha iyo ciidanka hagaajiyey xiriirka saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya sidoo kalena muujiyey dhaqan shaqo oo aan hagar lahayn kuna suntan karti iyo waxqabad mudanayaal iyo marwooyin guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada sharafta leh dalkeennu maanta waxa uu ku sugan yahay xaalad adag dhaqaalihii oo hoos u dhacay amnigii oo sii xumaaday caalamka oo dalkeenna ka sii jeesan raba kalsoonidii siyaasiyiintu isku qabtay oo daciiftay hay-adihii dhisnaa oo sii burburaya shaqala'aantii oo xoogaysatay abaarihii oo daba dheeraaday caafimaad darrada haysata shacabkeenna oo sii siyaaday iyo fikirka xagjirnimo oo sii laba kacleeyey sidaas daraaddeed maanta dadkeennu waa naga dhur sugayaan waxay naga mudan yihiin inaan u maciinno daacadnimona u muujinno eex ka fogaanno aayahoodana ka shaqayno ammaanadooda u ilaalinno oo aan alla ka cabsi ugu adeegno 30 sano waxaannu mad ahaan u guulaysan weynay oo weli aan dhibka ugu jirno waxaa loo tiriyaa qaladaad ka jira hoggaankeenna fursadda aan maanta haysanno waa mid naadir ah waxaan aaminsanahay in xubnaha baarlamaanku ay iswaafajin doonaan codkooda iyo dareenka shacabka dadkeennu waxay rabaan hoggaamiye qaadi kara marxaladdan la dareenaha shacabka kaasoo ku hubaysan aqoon xogogaalnimo faham caalami ah ammaano oo sidoo kale sii socodsiin kara shaqooyinkii ka socday dalka si aan hal maalin dalka looga lumin la isna waafajiyo awoodaha siyaasadeed ee dalka ka jira ee mucaaradka muxaafidka iyo maamul goboleedyada markii aan arkay duruufaha lagu jiro iyo baahida loo qabo hoggaan wakhtigan la falgeli kara waan eegay xogaalnimadeyda iyo baahida dalka taalla ogaalkayga caqabadaha taagan muhiimadda ay leedahay in shaqadii socotay la sii wado ahmiyadda xiriirka togan ee aan la leeyahay saaxiibbada beesha caalamka oo aan ku kabo wixii iiga kordhay 2 sano ee aan ka tirsanaa saaxiibbada mucaaradka iyo anigoo u diyaarsan inaan saxo wixii iga khaldamay intii aan xafiiska joogay sida loogu baahan yahay in dhinacyada siyaasadda la isku wado waxaan go'aansaday inaan hortiinna soo istaago oo aan idin weydiisto codkiinna si aan Soomaaliya uga gudbinno wakhtigan adag innagoo wada jirna walaalayaal 4 sano ee nagu soo socota waxay u tahay dalkeenna muhiim waxay u tahay dadkeenna sidoo kale muhiim waa 4 sano aan rabno inaan dib u habaynta ciidanka dhammaystirno
وافر سنة وان ربنا إن أنصو أفجرنا أرجع حسد دلك أفيسي وافر سنة وان ربنا إن رميس سنة دستور كاسي عن أهلنا حسلوني سياسات وافر سنة وان ربنا إن نكمل دلنا وده هذا الله دولة الفدرال كصوماليا إيو ولا لهم صومالي الآن وافر سنة وان ربنا إن نجارنا دور شق في عضة وافر سنة وان ربنا إن ندين عفنتا دميسترنا وافر سنة وان ربنا إن ترترنا سنان لأنت السياسات كده جرتا dadkeena waa 4 sano oo jaangoyn doonta mustaqbalka 40 sano ee soo socda sidaa darteed si loo gaaro hadafyadan waa in aad looga fikiraa cidda loo dhiibayo hoggaanka dalka waa in laga eegaa inuu yahay qof yaqaan tii shalay tan maanta la joogo fahamna ka haysta tan soo socota berri haddii aad doorataan waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka ugu dhow ee ka libin keeni kara geediga dawladeed ee Soomaaliya waxaan ahay qofka qura ee sharaxan ee 3 sano iyo bar hoggaanka dawladda ka tirsanaa muddo 2 sano ahna hoggaanka mucaaradka ka tirsanaa sidaa darteed khibradeydu waxay abuuri kartaa is-ogol siyaasadeed iyo dawladnimo loo dhan yahay waxaan ogahay shaqada dawladdu halka ay maanta taagan tahay waxaan darsay muddadii aan bannaanka joogay caqabadaha ina hor taagan iyo xalkii looga gudbi lahaa waxaan aqoon u leeyahay qaabka loola shaqeeyo iyo luqadda lagula hadlo saaxiibada caalamka ah ee kaalmeeya Soomaaliya dib u habeyntii ciidanka iyo dib u xoreyntii dalku meeshii aan uga soo tagay ayay dib uga dhacday dhaqaalihiina hoos ayuu uga dhacay halkii aan uga soo tagay dalkiina deyn cusub ayaa lagu yeeshay sidaa darteed waxaa ii diyaarsan qorshe degdeg ah oo aan dalkayga ku gaarsiin karo isku filnaansho amni iyo mid dhaqaale xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dastuurka haddii aad doorataan waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib u habeynta ciidanka haddii aad doorataan waxaan dalka ka xoreyn doonaa al-shabaab inta aanay dhammaan muddo xuleedkaygu haddii aad doorataan waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka haddii aad doorataan maamul goboleed walba iyo gobolka Banaadir waxaan ka dhisi doonaa isbitaallo loogu adeego shacabka loogana maarmo in caafimaad dalka dibaddiisa laga raadsado haddii aad doorataan waxaan dhammaystiri doonaa deyn cafinta si dalku u helo maalgashi caalami ah haddii aad doorataan waxaan miisaaniyadda dalka muddo 4 sano ku gaarsiin doonaa ugu yaraan $2 bilyan haddii aad doorataan waxaan ilaalin doonaa xasaanadda xildhibaanada iyo kala madax bannaanida baarlamaanka iyo hay'adaha fulinta haddii aad doorataan waxaan ku kordhin doonaa gunnada xildhibaanada ugu yaraan 30% sidoo kale waxaan gunnada xildhibaanada ku kordhin doonaa gunno daboosha kirada guryaha xildhibaanada haddii aad doorataan xildhibaan walba iyo qoyskiisa waxay heli doonaan caymis caafimaad oo ah isbitaalada dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa haddii aad doorataan waxaan tirtiri doonaa sinaan la'aanta dadka Soomaaliyeed ee ka dhex jirta siyaasadda haddii aad doorataan awoodda dawladdeeda 50% waxaan ku bixin doonaa horumarinta dawlad goboleedyada anigoo 50% fadhigaygu uu noqon doono dawlad goboleedyada haddii aad doorataan waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo cod mudanayaal iyo marweyn xildhibaanada sharafta leh iyo guddoonka labada aqal waxaan halkan ku xaqiijinayaa maanta haddii aan abni keeni waayo inaanan dib dambe hortiinna u soo istaagi doonin anigoo xildoon waxaan halkan ku xaqiijinayaa haddii aan cadaaladda ka madax bannayn waayo hay'adaha fulinta dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoon haddii aan hantida dawladda ilaalin waayo
dib dambe uma soo istaagi doono hortiinna anigoo xildoona haddii ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro ah aan shaqo abuur u samayn waayo 4 sano oo aan xilka hayo dib dambe hortiinna uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan dalka doorasho qof iyo cod ah gaarsiin waayana hortiina dib uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii beesha caalamka iyo Soomaaliya si wax ku ool ah oo Soomaaliya ka faa'iido aan isugu soo dhaweyn weynana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan dhaqaalaha kobcin waayo deyn cafinta dhammaystiri waayo oo aan miisaaniyadda dawladda gaarsiin waayo ugu yaraan $2 bilyan oo dollar inta aan xilka hayana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoona haddii aan xildhibaanada xasaanadooda ilaalin waayo oo aan gunnadooda kordhin waayo oo aan caymis caafimaad xildhibaanada siin waayana dib dambe hortiina uma soo istaagi doono anigoo xildoona mudanayaal iyo marwooyin dhammaan xildhibaanada sharafta leh barnaamijkayga siyaasadeed wuxuu ku cad yahay nuqulka aad haysataan waxa ku tafaftiran wax walba oo aan rabo in dalka laga hirgeliyo iyo sidii loo qaban lahaa dadka Soomaaliyeed ee naga maqana waxaan ku gaarsiinay hab walba oo maanta wax la isugu gudbin karo haddii aad fursad siisaan oo aan dhaqan gelino barnaamij siyaasadeedkan aan idin soo bandhigay waxaan aaminsanahay inaan gaari karno Soomaaliyada aan ku taamayno kulligeed mudanayaal iyo marwooyin guddoonka labada aqal guddiga doorashada madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed doorashadu waxay ku aadan tahay 15 May waa maalintii dhalinyarada waa maalintii halgamayaasha SYL waa maalin ay Soomaalidu heshay hoggaan curiyay xornimo sinaan bulsho iyo dawlad loo dhan yahay 79 sano kadib waxaan u taaganahay in ajandihii SYL oo la casriyeeyay aan ka hirgelino Soomaaliya kaas oo ah Soomaali siman madax bannaan isku filan nabad ah adduunkana ula macaamili karta si qaangaarnimo leh sidaas daraaddeed waxaan si xushmad leh idin weydiisanayaa codkiina si aan u rumayno himilada dadkeenna mirihii halgankii SYL-na loo gurto 79 sano kadib mahadsanediin ballanteennu waa inaan wada guulaysanno